هذا وضع كله يحصل على installation key Windows 7 بنسوينا إن شاء الله. Windows عبارة هالكاس Windows loading files. This is Windows setting. Also doing a self button. Starting Windows. And starting Windows as well. قدمنا logo ويروي على Microsoft. عين كويت. ما أنت عبرنا how to install Windows 7. لو أنت زوقع وسوينا عندنا. الماوس كذا صباحي. This is coming blue screen متقنين. It's Windows 7. سيدا كو مقتبعو كالرئيساء أو هالكاسا. Language كواي. Year وحواي. Currency format وتكاي جوكتا. هي input كذا وكيبورد. لو سيود بايلي كرتا ماشا سوق دافي كرتا هدو later أيا كبدلي كرتا أما اللغة ودنا كذا أتكسو داري كرتا. standard وين كدينينا أننا سيتت كي وفولاتو كليك next هذا كده نحني دونا دولا يرادا install now كده وصل بنا setting setting وصل بنا وسوينا وحير بوسان كلي سوغايا سبيس بدنا خاناتي وسويسا هو setup updating setup installing services وضع وسوينا don't be worried دقدقنا بودبودين سكسوك إن شاء الله يمشي ووسع عليه وهرو أنا complete كل هوش record they're completing as futures استخدام وقت الكمبيوتر كحسب بنايا starting complete ونقول وسوينا وصلنا عندنا استاذ also من دونا set up preparing your computers from use marka وسوي سا كدبنا check up performance checking video performance أنا استعمال دونت This is very important. meesha marka joogto waxa laga rabaa magaca ku buuxinina halkaas sida ku muuqdo waxa ku qoray macallinka waxa muhiim ah kanooso waa computer name way qorana waa username ma wanaagsan sidaan marka username macallinka ka dhiga kalena VC name oo bixinaya wadanka joogtay meesha joogto waxa sameey kaliya kan hoosaan tiray kan hoose tir mujeda halkaas ka tir waxaad ku qoraysaa danta guud waa naga dhahaysaa danta gaar ah ana qof walba dantiisa gaar u ah marka danta guud halkaas ku qoray computer name-keyga waa danta guud haddii domain ama computer kale oo isku xiran ay jiraan hadhow magacaasaad ku raadinaysaa insha allah ama home group user saad samaynaysa
kadib waxaan leedahay next halkan waxaa imaanaya password magugula talinaya halkan password inaad geliso mararka qaar waxaa dhici karaa inaad ilowda ha gelin marka waxaan samaynaynaa waxaan leedahay next ayaa sii riixaysaa next meesha markuu yimaada waxay ku xiran tahay product keygaad inaad geliso 25 kood ayaa laga rabaa halkan inaad geliso ani waxaan samayn doonaa kadib ayaa activation ka dhigi doonaa product key marka halkan waan ka boodayaa kadib waxaan leeyahay waxaan ku qorayaa halkaas next ayaa sii soconaya haduu ilaahay yarad next ku rufanaysaa ujeedaba kadib kuwa waa kala dooranaysaa wuxuu ku leeyahay user command setting important update only labadaba waa dhigi kartaa